kasoo muuqday imtixaanka dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya isagoo qalan 48 saac waxaana goobta imtixaanka ku galay lagu geeyay sariirtii uu ku jiifay isbitaalkii uu yeelay Shucayb oo ay weli jirkiisa ku jirto sunta dawadii saaki la siiyay ayaa laga soo qaaday isbitaalkii uu jiifay waxaana imtixaanka galaya isagoo aan waxba cunin tan iyo markii la qalay isla markaana xaaladda dhaqaatiirtu ay sheegeen in aan loo ogoleyn inuu dhaqaaq sameeyo ama uu fariisto aabaha dhalay Shucayb ayaa idaacadda kulmiye u sheegay inuu la kulmay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya kana dalbaday in imtixaanka dib loogu dhigo wiilkiisa ama ay dawladdu keento qorshe kale oo lagu xalliyo xaaladda wiilka maadaama uu geeyay warqadaha cadeynaya in wiilkiisa la qalay 24 bishan balse ay diiday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya sidoo kale aabaha waxa uu sheegay in wasaaraddu ay ka diiday wiilka xanuunsan imtixaanka loogu geeyo isbitaalkii uu jiifay wiilkana Shucayb Cabdi baa la yiraahdaa imtixaankana wuxuu ku galay jaamacadda Balaasma wuxuuna qalan yahay 27 waxa la qalay 24 bisha la qalay caloosha laga qalay hadii ilaahay qadaro waa garsama wasaaradda waa u taana cagayga kula tagay ugu tagay hadii ilaahay qadaro balse waxa weeye qof qalan iyo wadada isbitaal Madiina oo burbursan baa iska jirto oo dhibaato waa garsama dhibaatooyinkii la soo darsay bay kamid ahay aniga war uma hayo dadka kale laakiin waxa weeye aniga wiilkayga ka warbixin karaa wiilkaygu aad iyo aad wali suntii ugu jirtay suntu waxa weeye qanaaca ku dhacday qandho badan baa haysay naxalosh ka qalan waa tiradii 3 bari buu joogaa waa garan ka wali waa qatan yahay imtixaan buu galayaa maanta waa garan ka xanuunka intuu leeyahay talaabadan ay qaaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa ay dad badan ku tilmaameen inuu ahaa fal aad u xanuun badan oo dadka nacsiinaya dawladnimada waxay dadka qaar ku tilmaameen inuu ahaa fal naxariis darro oo ay ku dhaqaaqday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya